Fijas Consultancy Limited wax kastoona culuntii caynka loo agaasimo culuntiisa barano cilmigiisa garanayn ciladaha dhibtiisa iyo caynka loo sameeyaa ama loogu caal helo way kugu cuslaadaan cashuuraha dalkeenuna waa caynadaaso waa cuud ku waajiba cid kasto muwaadina ama ciida joogto amal shaqo ku hayse waa cashuuraha cadad lagu leeyahay cilmi lagu xisaabshiyo hadaan caawin loo helin aqli lagu qiyaasiyo cabir guud ma sixi karo cilmi weeye gaaro casharaad ku baratee عدة كوسهليسة كعاونيسا وحفيزك فيجاس Consultancy Limited وحفيزك طلب بحنت هي كعاونت بالشدة حبك عشور بحنت الدولية يدينا حساباتك جناحسك عصرك وعنو حفيزك فيجاس عدة دنين يسوي كعاونة يدينا عشورها الدولية يعقابك عشور بحنتها إكلا قديسن يسودو كله توبر حرفات وصينا عدي دنينيسا dhinaca xisaabaadka ganacsiga ee casriga ah taasi oo ay intaas u dheer tahay software ku fududeynaya hawlaha xisaabaadka ee dhinaca kombiyuutarada xafiiska Fijas waxyaabaha uu bulshada ganacsatada ah ee u baahan tala bixinta iyo ka caawinta dhinaca cashuuraha ah siinaya waxyaabaha ay ka mid yihiin annual income returns oo ah soo celinta dakhliga sanadlaha ah sidoo kale xafiiska Fijas ee tala bixinta uu ka caawinaya cidii samaysanaysa company dhinaca diiwaangelinta company-ga iyo sharciyeyntiisa si aad u hesho biinka diiwaangelinta sharciga ah ee ay bixiso waxda canshuuraha dalka Kenya ee KRA. Assalaamu alaykum. Wa alaykum asalaam wa rahmatullahi. Iska waran fiicanta. Alxamdulillah soo dhawaad. Waa maasantahay. Waxaan ka mid ahay ganacsiga Sili. Ma sha Allah. Marka waxaan rabaa xafiiskan Fijas kaarkiisa arkay. Marka waxaan rabaa xafiiska Fijas wax uu qabto. Ma sha Allah. Xasan oo soo dhawaad. magacii waa Abdulaziz Maxamed Nuur company-ga Fijas Consultancy Limited waxa office-ka inta ugu furnay in dadka oo Soomaali dhan oo ganacsiga inaan caawino waxa kamid ah oo xisaabiyaasha iyo KRA ritaanka qof company loo furay hadii aan ku soo gaabiyo shaqada aan qabano waxa kamid ah KRA ritaan waxa la dhahay KRA ritaan wax zaid u badan tahay laakiin waxa kamid ah waxa la VAT bishii la celin lahayo TOT oo lagu targalay small dukaamaha iyo dadka business-ka yar oo sameystaan iyo PE shaqaalaha waxa loogu targalay oo iyo canshuuraadka dhanba oo KRA qosayso VAT-ga TOT-ga iyo kii oo sanadka iyo PE NSSF NHIF waxa dhan dadka oo nacso waa ku caawina waxa kamid ah kala aan qabanana oo qofkii u baahan xisaab xirkiis in loo sameeyo software oo aan haysana oo xisaabta dhan oo wax dhan ku fududeynayo xisaabta bil hadii arabtid weekly arabtid sanadkaas kulli wax ku fududeen aan ku haynaa in xisaabta dhan oo clean ah oo caawin doonin waxa kale aan qaban waxa waaye diiwaangelinta oo company-ga qofka u baahan business oo bilaarta qofkii waxaas u baahan business company waa u diiwaangelinaa oo iyo waraaqihii loo baahan yahay dhan oo company-ga uu qoseeyo tan kale aan qaban waxa waaye audit-ka oo sanadkii xirka xisaabta taasna waan qabanaa waxa kale qaban waxa kamid ah ETR machine waxa la yidiro oo loogu talagalay dadka oo VAT-ga u furan in bil kasta ay celiyaan 14% oo ETR-kaas machine-kan waan ku haynaa daba haddii aad danaynayso xafiiska la talinta ee Fijas wuxuu xaafadda Islii ku leeyahay laba xafiis kuwaasi oo ku kala yaala dhismaha yara Baraasa dabaqa labaad qolka lambar 4 amaba room 4 halka xafiiska kalena uu kugu yaalo Nasteexo Kombalaga Center oo kugu dhigsan dhismaha Tusmo ee ku dhigan Alxaq Balaasa daba haddii aad danaynayso hore u gaad Nasteexo Kombalaga Center